السلام عليكم وانا احمد موسى waxaa rab la hamar inaan baro sida loo isticmaalo blender animation ka rabaan inaan baro qaybta waa qaybtii koowaad maadaama blender wuxuu leeyahay shan qaybood wuxuu leeyahay different loo sameeyo animation shantan qaybood ay kala yihiin mid kasta wax gooni u qabtaa kulligood laakiin animation ka yani hada dhisid from A to B yani animation ka sir uu soconayo ee kulligood uu mid bas u bedeli karaa qaybta waa qaybtii koowaad aan ugu macneenayo kan ugu horeyso oo animation ka kaasna waa timeline mid kale ka horeyso dope sheet laakiin dope sheet kaliya lama isticmaalo waxa la isticmaalaa non linear animation ama NLA sida loo yaqaan marka maanta waxa ka bilaabaa kan ugu fudud markasta blender furtid oo ku hor yaalo kan waa animation ka ugu fudud yani hadii aad kan taqaanid waa taqaan loo sameeyo animation ka kuwan kale waa extra yani animation kaagi ee yani sarpid kaagi dhigaya laakiin waa kan ugu muhiimsan inaad taqaanid hadaa sameynaysid animation hadaa taabatid G waa grab waa move tool kan moogtahay hadaa taabatid ra waa rotation waa sida kan oo kale hadaa taabatid S waa scale weynina yareena waana kan oo kale so marka object kasta taabatid wuxuu lahaa doonaa rotation location iyo scale uu lahaa doonaa object kasto oo hadaa taabatid aad soo gelinaysid wuxuu lahaa doonaa kuwaas mid kamid uu lahaa doonaa waxa la dhahaa object property ama object data la dhahaa so mid kasto magaca gooni uu lahaa doonaa hadaan taabto cube ka ama tusaale ahaan oo kale ana imaada meeshan waxa la dhahaa object la dhahaa object taabatid waxa arki doontaa location hadaan dhahora waxa dhaqaaqay kan koosay waa rotation hadaan taabtan isna waxa dhaqaaqi doono scale ka dhaqaaqi doono soo marka kuwan siin animation kadibna halkan inoo soo geli doonaan soo waqtiga markuu marayo hal intuu yaali doona markuu waqtiga amal marayo 220 amal wuxuu yaali doona meeshan ama tusaalahan soo marka saas hamar sameeyno waa sida ugu fudud tamaan taaban hamar meeshan eberan ku qora waxaan furna hamar kana furna si inuu ugu fududaato waxaan ku soo bilaabaa animation meesha ugu horeyso soo marka waxa taaban kartaa dhibcooyinkan meeshan ku diyaarsan ama ina kori maajid waxa taaban kartaa ay soo iyada taabatid wuxuu noqonaa orange uu noqonaa meeshan waxa ku imaan doonta dhibceer ku imaan doonto hadaa mar imaan amal 8 frame markay marayso hadaa kan hor u sikano meeshan amal geeno amar labaad aan taabano kulligooda wuxuu noo sameeyay mid cusub hadaa kan kor u qaado hal mar aan kulli ka soo wada bilaabo gadaal aan dhaho play waa kaas ugu dhaqaaqay that's why the basic of the animation that's why dhinacan kore waxa ku haysataa kan waa animation ka ku jirno dhowto la bedeli kartaa inta waxa ku haysataa playback waxay dhahan kadibna waa inta waxa haysataa optional kala haysataa oo hadaa isticmaalo sidoo kale audio kale cod hadaa soo gelinaysid aad inuu codkaas uu la socdo animation kaaga waxa leedahay mute ama unmute yani waxa u baahan inta ka sameyn kartaa playback kaaga inta control play in intan waxa ka haysataa control yaal badan oo kale meeshana laga siiyaa laakiin asiga xataa muu baahanaysid anaga wili ma sakan oo isticmaalay labadan dhinaca ku qoran tahay view waxa laga control wax kasta meeshan ku arkaysid oo kale ka arkaysid ku qoran tahay view waxa kamid ah tusaalahan oo kale show seconds meeshan waxa ku arkaysaa daas inay moogtahay frame ka ku arkaysaa hadaa meeshan ma setting ka meeshan waxa ku haysanaa inuu yahay 24 frame per second so 24 frame waa hal second 24 waa hal second 24 kalena waa hal second laakiin inta bedeli kartaa moogta waxa ka dhigi kartaa amal 30 frame waxa ka dhigi kartaa to 60 100 laakiin meesha marka bedeshid yani second intuu ka bilaabana second intuu ku dhamaana hadaa taabtid meesha ku qoran tahay view show seconds soo marka ta ku haysta hadii marka isticmaashid scroll wheelka soo marka hadaa baanta inaad ka dimi sidoo kale waxa taabanaya control T oo ka baxa control T oo ku shidna kuwan kale muhiim maaha laakiin waxa laga yaabaa inaad isticmaashid oo kale inay ku qoran tahay go to the current frame laakiin ibra taaban kartaa hadoo kale scroll wheelka isticmaal aan sayd u fogeeyo aan iska sakiyo amal ay arka amal anoo meesha amal joogo kala arab ina meeshaas aado waxa taabanaya amal ibr oo ku keena meeshaan ay ku qoran tahay marker kan ugu muhiimsan oo mar oo badan isticmaali doontid wuxuu noqon doonaa inay ku qoran tahay add marker shortcut kana waa M سامشت كور كوسين هدا تابتيد اما كل حكوسينا شوركت هدي اتابتيد F2 magaca ka bedeli kartaa waxa ku qori kartaa amal waxa ku qori kartaa test amal ama waxa ku ama asmay kartaa mid kale cusub laakiin markayashan waxay ku fiican yihiin object ku xiri kartaa sida kamerada kale hada xadaad soo ahaan kale laba kamera haysata hamar shift D aan dhahay kadibna kan rotation asi hada dhinac kamerada ka fiiriyo kamerada isticmaaluna kamerada kale ku isticmaali karnaa soo marka hore testiga ku qoran tahay waxaan keenaa bilawga kadibna kamerada u baahnana ka fiirinayna hal mar waana taabanayna kamerada ina imaan dhinaca marker waxaan dhahnaa bind camera to the marker control B ama command B hadaa sameeysid macbook hadaan taabana kan hal mar marker kaas aan kor imaano waxaan taabanayna kamerada kale hadda waxaan taabanayna shortcut control B soo magaca kamerada ku bedelmi doona soo hadda fiirina bilawga waxaan isticmaalnaa kameradan dhowtoona kameradan isticmaalina hadda baanta hore u sii kartaa soo marka kasii socono meeshan hadaa aragtida dhibicdan waa auto key salahan oo kale waxa soo gelina object cusub markeed saacada tahay ever kana skinina hal mar hadaa fiirsid meeshan automatic ahaan keyframe uu siina hadana 40 amal iska imaanayna kor aan qaadayna animation haysata hadana waa skinina wax yar hoos aan dhigayna wax sameeynin animation kala haysata hadda fiirino
أنا كان wax sameeyay laakiin ogaw markas iska demi waxa la yaabaa tusaalahaan oo kale ina dhahdo animation ka dhammeeyay hadda nalkan araba hamar ina inta keena amal waxa cabaar kadibna marka inta maris kamarada waxa rabaa nalka xarana inta keena amal waxa sarka adigoo animation nalka siis adigoona u baahneen ina siisid amal tusaalahaan soo markas iska demi hadaba baanta keyframe ina la geliyay waxa taaba kartaa x delete soo marka dhinaca dhaxdana soo aadina meeshan si ay tahay super simple waaye inta waxa way aad bilawga animationka inta aad dhamaadka animationka keyframe-ka dhinacan ka xigo dhinacan bidixda ka xigo oo kugu dhow ku dhig hal mar hadana baahana kan waxa dheena keyframe-ka inta ka xigo hadaba baanta dhinac midigina u buujid keyframe-ka jirane soo dhinacan taabanay marka ma dhinacan kale dhinaca uu keyframe-ka ugu maruyo way kan waa start meesha ka bilaabanayo hadaba baanta inuu ka bilaabo 40 in markay taxmal inta dhay 40 ka baxa ka bilaawdo hana ku dhamaado 69 amal laakiin animation kan wuxuu ka bilaabanaa hal soo hala ka bilaabaniga waxana ku ekeenaa meeshaas ugu dambeeyo dhinacan midigi bidix mar walba waxa ka ahaa doono waxay dhahan end tab iyo toolbar taafurna meeshan waxay sidoo waxay dhahan summary waxa t lagu furaa maadaama t aan ku furina mugtahay hadda t taabatid waxa ku imaan doona system kale oo nooc kale soo systemkaas waxa ka dib hamar aan sheegi doona wuxuu sameeyo laakiin hamar ay maana meeshan ku qoran tahay summary aan furayna hal mar summary-gana objectiga taabatid amar walba meeshan ku yaali doono hadda sphere ku qoray meeshaas maadaama sphere kan taabanay hadaan taabana kan hadaa furno kale cube-ka aan furno animation-kana hadaan sii furno waxay soo doontaa dhowr objecti inta wax u dhaqaaqayaan haddaan mar imaana meeshan ama meeshan korabo dhinaca location-ka asiinu animation location x location y location z kan waa location-ka x midna waa location-ka y kanna waa dhinaca oo z-ga waa eber bilawga dhamaadkana waa eber inaa kor imaana taabaneen right click select aan dhigi karnaa delete single keyframe kana sidoo kale delete single keyframe dhinaca y-ga bisaan isticmaalina mogtahay y-ga bisa animation-ka oo muhiim haddii amana kusoo laabano cube-ka hal lambar bis aanu animation laakiin sphere-keena wuxuu ku xunyaa mataqaanaa haddii aad taabatid meeshan animation-ka kulli rotation location iyo scale-ka wuxuu ku wada sii doonaa animation haddii aanad bedelin xataa hadda furna meeshan meeshu hadda kan ka ahaa hal shay bis halkaas shayna fooda runtii in la bedelo kan wuxuu noqon doonaa 9 shay scale rotation iyo location haddaa aragtid calaamad cadaan oo sidan u dheer macnaheedu waa isma bedelayo wax kaliya isbedelayo waxa way kan z location wax kaliya isbedelayo waa kor iyo hoos kuwan kale inaan u qabano aad dhigi kartaa x delete ama inta ka bixi kartaa labadan kale inaan u qabatid aad dhigi kartaa x delete soo marka waxay haysataa bis hal z bis haysataa animation sinusid auto keyga hadii aan laazim inaan isticmaalin maadaama systemka ugu saydo bixi doona hadda dhulto loo baahan tahay inaan imaadiyo kale graph editor ama meelahan oo kale أو بهانتا إن هل شيء بس بدشيد يعني وحارك دونتا بقول شيء أو ماشي وذو بوحان سو مركا دي لازم يعني حبها دارنين سو مركا حنقول عبنا همر تايملاين كينا دينا عن كلنا وأكشن سو دينا عن بدنا مستعمل دونتيد كوانو كله وحكويس دونتا دينا عن قرنتا دوب شيت كيو جراف فريد كويس دونتا أنت متعبنا إنه مدامو لما بيستعملوه بدنا سو مركا هل شيء بس أروينا كدارو وحكستو بلندر وحاسي كرتانيميشن سو روتيشن سكيل بسمها دائما تيدو كله دينا أو شيدر كله ملكستي قرنتا هاللمبر وحاسي كرتانيميشن سو كلر حتى وحسي كرتا انيميشن waxaan kartaa hada cagaar oo kale dhamaadkana ina kalarka dalbatid korimaa kadib waxa taabata mar labaad kalarka si karta animation wax walba metallic si karta animation every single thing maskaxda ku soo dhici karto waxa si karta animation kan ugu dambeys hamar ka hadi doona ee la dhaho interpolation hadda hal mar aan taabano kale cube kan amal aan taabano maadaama waa laazim in hadaan cagaar hadda mar fiirsan animation mar aan dhaho play wuxuu ku bilaabi doonaa tartiib xoog u soconaa hadana tartiib u istaagi doonaa hadoo baanta inuu tartiib ku bilaaban tartiib ku dhamaanin waxa taab kartaa t kadibna linear so automatic yani sim bedelaay sidiisu ku socdo doonaa speedkiisa bedeli doona amaraan jaabino hadda waxay hor u booday maadaama linear ku socda hadana aan play caadi u socda u istaagi doonaa bis ama bilaaw ku soo bilaaban doonaa soo marka inaad kuwan kale ka bedeli kartaa waxa ka dhigi kartaa inuu tartiib ku bilaawdo amal ama tartiib ku dhamaado hadoo ka tartiib ku bilaabana xoog ku aada dhinacaas dambe ama waxa ka dhigi kartaa yani the opposite amal ama waxa ka dhigi kartaa inuu noqdo bouncy hadaan taaban amalka ku qoran tahay bounce and aan play so animation kale wasaas inuu aado kala bar ku soo laabana hadana u laabana ku soo laabana ilaa uu ka istaago soo marka maanta saygay video dambe insha Allah waxaan ka hadli doonaa graph editor-ka hadii ay jiraan wax yani ay ilaawi ama u baahan tahay in video dambe insha Allah uga hadlo comment ku soo qor inta video dambe soo ka doonaan leeyahay ma salaam